قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر الأطهار نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay markaasay aragto way la ooyday iyadiina markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyaysaa markaa bay tidhi dee adoo ooyey unbaan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونضر الظالمين فيها جثيا أنا وحان حصوصتي قولك إلهي وإلهي إليهي مid kastoo ininka naga mida ma jiro hadduu jirase jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi uma intaa kadibna nunaji aladiina attaqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonnaa baa ilaahay yidhi waan nabadgelin doonnaa wanadaru aldaalimiina fiiha jasiya daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi dhabtuu kuu jifaa innanka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur'aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeennu xisaabinaynaa oon meheraddeenni ka fikiraynaa iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiinna markaad la galmoonaysaan ducadaa xasuusta nebiga ayaa yidhi akhristee bismillaah allaahuma jannibna ashaytaan allaahuma jannibna ashaytaan wajannib ashaytaana maa rasaqtana markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan bisinkaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar waa lay sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi taasaa ii kala caddayn